الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta yeelay inaan ka hadlo saddex qodob oo xasaasiya waa tan diiwaangelinta oo maraya bishii maalintii labaad. qodobka labaad oo ah inaan u hambaliyeeyo Ibrahim Saciid oo laga dhigay maareeyaha dekedaha dalka, taasi oo ahayd in ahna dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo ka mid ah gobollada galbeedka. waxay taasi qodobka saddexaad ka hadli rabaa haddii la helaado waxa weeyaan arrintan miidiyaha maalmahanba socotay marin habaaminteeda leh ee xisbiga wadani khaasatan Mercy. haddaan ku horeeyo qodobka koowaad ee diiwaangelinta, waxaan leeyahay facebookii baa maraysaa. runtii maanta meelo badan oo soo marnay waxaan la keenay diiwaangelintu inay socoto, meelihii la dhiganayo sideeda uga socoto. dadka waxaan leenahay war hala qaato kaarka 1 iyo 2 iyo 3 waxaan leenahay hala qaato kaarka. in la qaato ayaa muhiim. wardanaha gaarka inaynu dantaa guud ee beritoole aynu ka naanaasin doono inaynu kaarka qaadana ayaa ka muhiimsan. bulshada waxaan ugu baaqayaa inay kaarka qaataan. qodobka koowaad muhiimaduna talabaad waxa weeyaan qodobka labaad ka hadlayo Ibrahim Saciid oo loo magacaabay maareeyaha dekedda. Ibrahim waxaan leenahay hambaliyo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaan leenahay madaxweyne hankaagii himiladaadii aad noo soo bandhigtay maalintii aad musharaxa ahayd ee ahayd dhalinyarada inaad doorkeeda ciyaarsi doorkooga ka qaadan doonaan waan kuugu hambaliyaynaynaa. waxaan ku leenahay madaxweyne ilaahay ha kugu waafaco. ilaahay waxaan kaaga baryaynaa ifka barwaaqo aakhirana janno. waxaan leenahay intaas in ka badan oo ka sugeynaa. qodobka saddexaad ee ka hadlayo waxa weeyaan tani bariga baryahan laga soo sheegayo ee xisbiga dhaleecaynta iyo malaawaalka oo ka wado dadka ku wado ee ah shakhsiga hogaamiyaha sheeganaya magaca hogaamiye marin habaabiye ummadda ee beenta ka sheegaya magaca. waxaa leeyahay horta magaca siduu ahaa maahina dib dhalinyarada iyo dadkan waxaan leeyahay noble civil in la bartaa horta waajib. because of administration systemki waxaad moodaa in ummadi waxay wax ku tahay xeerka iyo decentralization systemka u yaala maamul baadijinta u taala inay horta bartaan. xirsi hal issue buu ka lahaa laakiin waxa weeyaan bad information inuu ka qaato oo dhinac xun wax mar waliba oo fasilaad kaga dhigo. waxa ay tahay administration-keedu inuu marino ummadda yaan la marin habaabini shakhsi ninna meesha gurigiisa dee looguma tago. maamul baa jira, gobolladu administration la raacay leedahay. sida aad aragtay shumbiyoodka la sheegaya jira waxa uu ka dhacay Somaliland oo dhan qaarkeedu ka dhacay gobollo fara badan. laakiin maamul kasta hadday ahaato mucaarad hadday ahaato muxaafid waxay soo maraan administrationka systemka maraan oo maamulka heer gobol ee wasaaradda caafimaadka ayay mariyaan waxay qabanayaan. isagu laakiin gacanteedaan ku bixinaya waa siyaasadda caadi ahayn. halkaa qof kasta garaad lagu garanaya ciddii aan garanayna runtii waa nasiib darro maanta garan weydaa. waa dad indicator aynu wadanahay. xirsi waxaan leeyahay sidan si dhaantay halkan waxaa ka day meel kale wax ka day oo la kaalay qorshe siyaasadeed oo xilliga xisbigaaga aan lagu raaco. waxaan leeyahay dadkana waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya gobollada galbeedka
كارك هلا قاط وكارك هلا قاط ألف رحمة هذا البقرة كلها شلي هدينه على علي ما تهينه على علي وحكف يعني إنه هذا اللي يري حول بدنا النقطة أو شيء إن شاء الله بالله توفيق والسلام عليكم.